weydiiyaan waxa uu leeyahay sheekh nin gaalnimo faafinaya oo Soomaali ah dadku ma ku diri karaa haddii aanan tabar kale u hayn anoo been uga sheegaya si looga kala cararo waajibkaagu waa inaad uga digto muslimiinta diba gaalnimo iyo fasaad uu faafinayo iyo ilhaad muslimiinta u sheeg u naseexay inkaarul munkar wa munkar la galana waxa ugu weyn gaalnimada iyo dadka in loogu yeero waajib ay kugu tahay marka inaad muslimiinta uga digto oo tiraada iska jira xumaantaas wada waxa dadka ugu yeedhaya gaalnimadiisa iska ilaaliya waajib ay kugu tahay laakiin inaad ku been abuurato oo wuxuu sanahay inaad dusha ka saarto ma yahayeelin intuu wadaaba kugu filan been maxaad uga baahantay war gaalnimo wada soo kuguma filla burhaani inuu gaalnimo wado laakiin ku been abuuran ilaahay quraan kariimka wuxuu ku yiri wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu cadaawad idin kala dhaxaysa dad yeesan idinku xambaarina cadaaladda ka tagtaan ayadaasi gaaladay ka hadlaysaa asalkeedu gaaladay ku timid gaala dagaal iyo cadaawada idin ka dhaxayso yeena cadaawadaasi idinku xambaarina cadaaladda ka tagtaan cadaaladda ilaaliya ayada kalena rabbi waa mid kale inma yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati allah wa ulaika humul kadhibun been abuurad waxa sameeya oo kaliya ruuxan ilaahay ayadkiisa rumaysnay marka been abuurad xoog ma baahan saas daradeed quraanka kariimka markuu dagayay gaaladii uu radinaya kuma been abuuranin waxay ahaayeen buu sheegay waana radiyay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi gaaladii uu mabaadidooda radinayay ama la dagaalamayay kuma been abuuranin waxay ahaayeen ayuu kula dagaalamay waxay ahaayeen buu sheegay kadibna radiyay sallallahu alayhi wa sallam alayhi saas daradeed mu'minku waa caadil mar walba cadaalad iyo naxariis buu xambaarsan yahay saas daradeed ha ku been abuuranin wuxuusan ahayna ka sheegin laakiin ku filan gaalnimada uu wado inaad sheegtad ummadda uga digto wallahu a'lam